sidaan xalay mar dambe aan ku dhawaaqnay waxaa jira kiisas badan oo soo kordhay hadda tirada guud ee dadka qaba cudurka waxay maraysaa 237 qof ayaa positive ah dhimashada nasiib darro waxay gaartay ilaa 8 xaaladood ilaahay ha u naxariisto sabir iyo iimaan Allah naga siiyo intii ku geeriyay xanuunka isbitaalka Martini waxaa jiifta ilaa iyo dhowr 10 qofood oo xanuunka la yaala wax daran ma aha intooda waana la tacaalayaa oo si fiican aan loola socdaa waxaan bilownay qorshihii labaad Martini 2 ee ahaa isbitaal banaadir inaan qayb ka helnay oo aan sidaan shalay ku wargelinay saxaafadda qayb loo gooyay haddii lacala uu buuxsamo isbitaal Martini in iyadana dhinacan loo wareejin karo saakay waxaa howlgalaya shirkadda Hormuud oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo oo naga kaalmeynaysa in afarta qaybood ee loo gooyay banaadir laga gooyay ee lagu la talcaali doono dadka cudurka soo rito ee lagu xanaaneyn doono iyaga dib habeen ku sameynaya Hormuud waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo sidoo kale waxay ahayd Hormuud shirkadii ugu horeeyay oo call center-ka nambaradana siiyo si dadka xanuunka qaba ama isaga shakiya ay soo wacdaan waa wax lagu farxo in dadkeenii maalqabeenka ahaa ay safka hore soo istaagaan ay dawladda ku kaalmeeyaan wax allaala waxay ku kaalmeyn karaan waa mahad celinayna waxaa jiri doona isbitaallo kale iyagana la raadin doono haddii alla idmo si loogu diyaar garoobo lacalla haddii loo baahdo tirada waxaan u jeednaa inay sii kacayso marka waa waajibna saaran ee dawladda saaran inay hesho meelo badan oo kala duwan oo magaalada gudaheeda ah in lagu xanaaneyn karo oo dhinacyo badan magaalada laga asteeyay isbitaal banaadir Martini hawshiisa waa la dhameeyay alxamdulillaah waxaa ka shaqeeya dhaqaatiir iyo firfircoon oo diyaar u ah 24 saac waxaan ku talinaynaa marka maadaama nambarka uu sii kordhayo xanuunka magaalada uu ku jiro in horta qofka bani aadamka uusan qarsanin uu soo waco nambarada uu soo raadsado talo si looga kaalmeeyo wax allaala wixii loo sameyn karo tan labaad waxaan leeyahay dadka waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed in mar walba ay taxadirto cudurkan waa cudur laga hortagi karo waa dawladda waxay ku dadaashay in diyaaradihii ay istaajiso shaqadii la iska fasaxo wadanka la xiro aan la soo galin aan laga bixin haddii aysan ahayn xaalado bani aadanimo waxaa loo yeelay in cudurkan aad loo xakameeyo oo la dhimo inuu ku faafo gudaha bulshada qof kasto inaga naga mid ah waxaa saaran waajib in uu ka hortago qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo in uu ku dadaalo nadaafadda siiba gacmo dhaqashada ayadoo saabuun iyo sanitizer lagu dhaqanayo ugu yaraan 20 ilbiriqsi iyo ka badan in ma aragtay meelaha goobaha la isugu taga aan la tagin sidaad la socotaan banda waa lagu soo rogay magaalada wax kale looma yeelin xayiraadaas waxa waa in hoos loo dhimo chanska in dadka ay isdhex galaan tirada dadka uu ku dhacay cudurka waxay u badan tahay dadka dhalinyarada 20 ilaa iyo 40 jirka alxamdulillah waa dad intooda badan xoog leh immunity-gooda u fiican yahay laakiin ogaada qofka jirkiisa mar hadduu jeermiska galo waa gudbinayaa xataa hadduusan xanuunka ilaahay oo ku ridino uusan ku dhicin marka ha u gudbinin xanuunka reerkaada iyo ciddaada iyo saaxiibadaada iyo dadka aad jeceshahay gurigaada joog isxakame haddii aad aragto calaamadihii takhaatiirta iyo dadka cilmiga u leh ay sheegeen oo la leeyahay intaan waa calaamadaha soo raadso kaalmo caafimaad waxaan kaloo rabaa inaan ka codsado dhakhaatiirta iyo isbitaalada magaalada joogto Dr. Fujana waa iiga dambeyn doona si fiican waa u sii sharxi doona dadka ha ka celinina isbitaalada markay yimaadaan qofka waa waajib inuu soo raadsada xarun caafimaad hadduu dareemo caabuqa calaamadihiisa ama xanuun kale inay yacni iyagoo taxadaraya qofkii qaabilaan kadib noo soo gudbiyaan waxaa kaloo jira xaalado badan dad masaakiin ah oo xanuunsan oo xanuuno aad u daran qabo oo kooma qaarkood ku jiro last minute qofkii markuu dhiman rabo inta naloo soo saaro ambulance isbitaalka la keeno oo wax yar kadib dhinta
ma aha wax laga qurxoon yahay qofka bani aadamka waa loo tagaaya analysiska waa laga qaadaa laakiin yaanan la rafaadinin ummadda waajibaana wada saaran kulligeen inaan gacmaha isqabsanno aan ku dadaalno saan u xakameyn lahayn cudurkan uga hortagi lahayn waana soo gaarayaan dad badan oo u xanuunsan ee calaamadihii covid ama hergab maxaan sameynaa waxaan ku boorinaa dadka inay wacdaan nambarada 449 oo ay joogaan dad xirfadlayaal caafimaad loo tababaray xanuunkan calaamadihiisa iyo xitaa dadka siday ula hadli lahaayeen warsanaya waanada iyo expertise-kooda waa dad tababaran cilmiga wax ka yaqaana takhaatiir u badan waxaa la weydiinayaa su'aalo lagu ogaan kara qofka waxa uu qabo haddii loo arko marka qofka in calaamadihii uu qaarkood qabo ama kuwa ugu daran uu qabo waxaa loo dirayaa isla markiiba ambulance martiini 8 ambulance taala waxaa loo dirayaa ambulance waa la soo qaadaya waxaa la keenayaa xarunti lagu baxnaaninaya meesha triage-ka lagu ogaanayaa intaan gudaha loo gudbinin isla markiina waxaa loo dalbaa inuu testiga laga qaado oo qolyihii shaybaarka la ogeysiiyaa haddii la arko calaamadaha inaysan ahayn calaamadihii covid-19 shaki weyn uu jirin qofka waxaa lagu waaniyaa inuu guriga joogo isdhowro dadka uu iska xakameeyo follow upna loo sameeyo waxaa jira gruubo badan oo la diyaariyey oo rapid response team la leeyahay ilaa iyo shalay waa laga shaqaynayay dadkaas nambaradooda waa la qaadayaa dib ayaa loo wacayaa kadibna lala xiriiraya laakiin case-ka markuu qofka u arko inuu yahay case suspectigiisa aad u weyn yahay waa la raadiyaa qofka martiiniyaana la geeyaa